ma aha warshadihii caalamiga ahaa ee lagu sameynayay misana lagu soo saarayay bambooyinka gawaarida, mana ahin warshadii soo saaraysay bambada, balse waa saacad macmal ah ee lagu koontaroolayo in ay shaqaynayso bambadan macmalka ah. Bambooyinkan ayaa loogu talagalay gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida cagaf-cagafta yacni makiinta, saarifta iyo hoomeyda, nooc kastoo ku yimaada gaadiidka ay isticmaalaan bulshada reer Jowhar. Fac ka fac ayay jiitamayaan si ay ugu sameeyaan bambooyinkan, jiilba jiilka kale ayuu sugayaa, ardayna arday kale ayaa sagootinaysa. Waa macallinkii xigay ee ka shaqaynayay bambooyinka. Macallinkii soo waxbaray uu hadda mowto uu yahay. Jowhar iyo tuulooyinkeeda ayay kaga shaqaystaan saacadaha macmalka ah, balse ma arkaan dhibaatooyin kaga yimaado xagga bulshada maadaama ay ku shaqaynayaan saacad macmal ah. Ma haystaan agabkii oo dhammaystirnaa ee lagu fiirinayay bambooyinkan iyo weliba waxyaabaha quseeya ee ku socdo matoorada gabaarida. Waa kan mid ka mid ah macallimiinta hal abuurka u leh in ay dayactiraan bambooyinkan. Dugsina waa tahay hoola oo farsamo oo gaadiidkana waa loogu shaqeeyaa. Ciyaal badan ayaan soo aflaxanay, qaarkood ciyaalkaas badan iskooda hadda u shaqaystooyaan, qaarna anagay noola joogaan. mar walbana waxaan ku dadaalnaa inaan dhalinyarada oo gobolka joogto farsamo haddii u baahan yihiin inaan ka caawino si hadhow ay ugu shaqaystaan noloshooda ay ugu maariyaan. teeda kale meeshaan qalab oo saas u fiican ma yaal, laakiin shaqada waa uu la wadaa. wax dhibaato kama soo yeera cagafyada gaadiidka kale waxay noqdaan. meeshaan 3 ruux aan ku joognaa odayaal aniga Cabdi Cali waa u weyn, makaayil guduud oo ku xigay nin bar guduud oo dhaayna ninkii saddexaad waay macallin koowaadna aniga waay. sidaa darteed waxaan maanta meeshaan shaqadan waxaan bilaabnay. shaqadan ma dhaw aabaa laga soo gaaray, nin walba waa yaqaanaa. Cali Jiijo nin muctaraf u ahaa, raas Kamboon ilaa raas Caseera laga yaqaanaa. asaga ayaa na soo wax baray, annagana asaga ayaan dad kale ayaan shaqadii ayaan ku sii aflaxanay. asaga maadaama uu dhintay naxariista janna Allah siiyo, balse shaqadan asagaan ka soo gaarnay. shaqadan hadda anaga waxaan wadnaa 30 sano, allahan dawladda burburkeedaan wadnaay. alxamdulilah rabbil caalamiin, shukr. wax dhibaata ma kala kulanno, gaadiidleyda iyo wax walba waa la macaamilnaa. wax dhibaata ma la kulanno, mana aragno wax oo dhib oo ka yimaado. wax waa iska halaabaan, haddii halaabaan kulley dad muctaraf aan nahay, magsi waxaas ma jiro. waxa ninka hadduu ka halaabo asagaa kaysana, farsamadii haddana sidii loogu qabanaa. wax dhibaato hadda aan la kulanna ma jiro. 32 sano oo maleenaa dawladda burburkeeda iyo 31 sano waxay tahayba intaasaa macnaa shaqadan aan wadnaa. sidaa awgeed hadda kadibna waxaan jecelnaa ciyaalkii aan soo aflaxanay inaan ku siino sana anagana oo jil kale oo cusub aan soo saarno. qancanaan intaan ka weyn ma jirto, marba haddii aad soo daabateen macallinkii weynaa ee bambiistaha ahaa. waxaana inta badan bulshada reer Jowhar ay ku xeel dheer yihiin in ay farsamo gacantooda ah ay sameystaan, taa oo ay ka dhiganayaan hal abuur ayaka u gooni ah. marba haddii soo aragteen midabyo kala nooc ah, bambooyin kala cayn ah iyo weliba saacad macmal ah, waxaad moodaa in ay ka kaaftami doonaan haddii ay heli lahaayeen agabkii loogu talagalay kan laga keenaya dalalka kale. Yusuf Abubakar Ibrahim, 5 Somali TV, magaalada Jowhar. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.